Bismillahir Rahmanir Rahim. Halkan waa xanta wararka qodobada aan idin hayna waxaa kamid sarkaal militariga dawladda ka tirsan oo weerar ku ah taliya Generaal Zakiya Xuseen dadaal lagu heshiisiin rabay Puntland iyo Villa Soomaaliya oo fashilmay yaay tahay cid diiday xog ayaan arintan idinkaga haynaa dawladda Kenya oo ka rajo dhigtay isku day dawladda Soomaaliya ay ku doonaysay inay ku qanciso Cornel Caare oo si adag ugu soo hanjabay madaxda maamulka Somaliland iyo maxkamadda Nairobi oo go'aan ka gaartay kiiskii Ibrahim Bursaliid iyo dadkii la socday intii aad daawateen waxay ahaayeen qodobada wararka aan idin haynay saaxiibayaal haddii aad tahay markii ugu horeysay ee aad daawanayso channelkeena fadlan subscribe sar qaybta hoose aragtidaada noogu reeb markan warkii oo dhameystiran madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qaabilay dood ka soo gudubtay oo ay xallin kari waayeen taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya Generaal Bashir Ameeriko taliyaha qaybta booliiska Soomaaliya Sadaq John iyo taliyaha militariga Soomaaliya Generaal Endaqashe taasoo salka ku haysa askari dhamaadkii bisha Ramadaan lagu dilay gudaha suuqa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir xanta wararka ayaa ogaatay in madaxweynaha Soomaaliya uu kulan la qaatay taliyaha guutada 14 Oktoobar oo lagu magacaabo Axmed Gaashaan kaasoo maalmo ka hor ku anjabay in uu weerari doono taliya ku-xigeenka labaad ee ciidamada booliiska Soomaaliya Generaal Zakiya Xuseen iyo taliyaha saldhigga degmada Xamarweyne arrintan ayaa ka dhalatay israasaaseen dhexmartay ciidamo ka tirsan guutada 14 Oktoobar iyo ciidamada booliiska degmada Xamarweyne taasoo ka dhacday dhamaadkii bishii Ramadaan suuqa degmada Xamarweyne israasaaseentaas waxaa ku dhintay askari ka tirsan ciidanka Axmed Gaashaan oo ka adeeganaya suuqa taliya Axmed Gaashaan ayaana ka hor inta aysan ciidamada suuqa soo aadin waxa uu soo wacay taliyaha saldhigga Xamarweyne waxaana uu ku wargeliyay in ciidamo kuwiisa oo aqoonsiyo wata sidoo kalena loo tilmaamay gaarigooda ay suuqa ka adeegan doonaan taliyaha saldhigga oo aqbalay arrintaasi ayaa sidoo kale la sheegay in ciidamadiisa ay ku wargeliyeen in wax ay ugu yeereen burcad suuqa soo galeen isagoo amray in la qabto ama la toogto waana qodobka lagu haysto taliyaha saldhigga Generaal Zakiya oo ah taliya ku-xigeenka labaad ee ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa iyana lagu haystaa qoraal ay soo dhigtay boggeeda internetka oo ay ku sheegtay in la toogtay askari ka tirsan koox burcad ah mid kalena la qabtay waana dooda kale ee Axmed Gaashaan uu ku haysto Generaal Zakiya madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay in arrintan ay gaartay isla markaana uu dalbaday in uu wax ka qaban doono arrintan wararka aanu helayno ayaa sheegaya in arrintan ay sababi doonto xilka qaadista taliyaha saldhigga degmada Xamarweyne taliyaasha booliiska iyo militariga Soomaaliya ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyay wixii dhacay iyagoo cadeeyay in qaladka jira dhanka booliiska uu leeyahay balse uu xalkii diiday Axmed Gaashaan isagoo dalbaday in loo toogto askarigii dilay askarigiisa ama uu dagaal dhici doono dhinaca kale ila wareedu lagu kalsoon yahay oo ka agdhow xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaa xanta wararka u sheegay inuu fashilmay dadaal lagu doonayay in la isugu soo dhaweeyo xukuumadda Puntland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii Puntland ay xiriirkii wada shaqaynta u jartay Villa Soomaaliya wasiiro xildhibaano iyo siyaasiyiin kale oo ka soo jeeda Puntland ayaa sida wararku ay sheegayaan ku fashilmay dadaal badan oo ay ku bixiyeen sidii madaxweynaha Puntland Dani loogu qancin lahaa inuu dib u soo celiyo xiriirkii wada shaqaynta ee kala dhaxeeyay xukuumadda Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Danjir Axmed Ciise Cawad xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh iyo xubno kale oo ka soo jeeda Puntland ayaa ku guuldareystay dadaal ay ku doonayeen in madaxweyne Dani uu ka laabto go'aankii xiriirka wada shaqayneed uu ugu jaray Villa Soomaaliya madaxweynaha Puntland ayaa sida ilo xog ogaal ah u xaqiijiyeen xanta wararka gabi ahaanba diiday inuu ka laabto go'aankaasi ilaa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay ku dhaqanto dastuurka lagana heshiiyo arrimaha ay isku khilaafsan yihiin labada dhinac Dani oo haatan safar uga maqan dalka dibaddiisa ayaa sida qorshaha uu yahay toddobaadkan waxa uu magaalada Nairobi kula kulmi doonaa madaxweynayaasha Galmudug Jubbaland Hirshabelle iyo xubno ka socda beesha caalamka kulankaas ayaa la filayaa in madaxda dawlad goboleedyada ay si wada jir ah cabasho kana xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ugu gudbiyaan xubnaha beesha caalamka ee jooga magaalada Nairobi ee wadankaasi Kenya isla wararka la xiriira dawladda Kenya haddii aynu fiirnana dawladda wadankaasi Kenya oo muran salka uu ku hayo arrimaha badda kala dhaxeeya Soomaaliya
ayaa haatan waxa uu gaaray khilaafka labada dal halkii ugu sarreeyay. Xanta wararka ayaa heshay xog ah in dowladda waddankaasi Kenya ay ka quusatay in wada hadal ama gorgortan dowladda Soomaaliya ay uga gasho muranka badda kana laabato dacwadda haatan hortaalla maxkamadda ICJ oo sanadkan gudihiisa la filayo in go'aan ay ka gaarto. dhowr jeer ayuu dowladda Kenya waxa ay isku dayday in Soomaaliya ay kala hadasho sidii wada hadal looga dhamayn lahaa muranka badda, balse dowladda Soomaaliya ayaa arrinkaas ka biyadiiday waxaana ay sheegtay in ay ku qanacsan tahay go'aanka maxkamadda ayna tahay in laga wardhowro. Sidoo kale Kenya ayaa markii uu fashilmay isku daygii wada hadallada waxa ay bilowday in cadaadis ay saarto Soomaaliya iyadoo ka baxday heshiisyo dhowr ah sida diyaaradaha tooska uga dagi jiray magaalada Nairobi oo ay joojisay iyo in madax dowladda Soomaaliya ka tirsan loo diido baasaboorkii diblomaasiga ahaa ee dalku galka in loogu dhufto. Ha yeeshee weli Soomaaliya kama aysan tanaasulin in go'aankeedii ahaa in la dhowro go'aanka maxkamadda ICJ ay qaadayso oo ku aadan dacwadda Soomaaliya iyo Kenya ay u gudbiyeen. sababta Kenya u qaaday tallaabooyinka xumeeyay xiriirka labada dal ayaa dadka falanqeeya arrimaha dacwadaha waxa ay ku sheegayaan inuu jiro tuhun ah in dowladda waddankaasi Kenya ay ku guuldareysan karto kiiska badda ee maxkamadda ICJ go'aankeeda laga sugayo. Korneel Caare oo ah sarkaal hogaamiye jabhad ka goosatay maamulka Somaliland oo ku sugan deegaanada Puntland ayaa fariin hanjabaad ah u diray xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee Somaliland. Korneel Caare ayaa xukuumadda madaxweynaha maamulka Somaliland ku eedeeyay dilal loo geystay saraakiil ciidamada Somaliland oo ay ugu dambeysay dilkii dhawaan gobolka Sanaag loogu geystay laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada. Caare ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay soo dhaweyn doonaan cid kasta oo ka soo horjeeda xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi isagoona si adag ugu jawaabay hadallo ka soo yeeray barasaabka gobolka Sanaag. Korneel Caare ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dagaal uu sheegay in xukuumaddu ay kula jirto boqor Buurmudug isagoona xusay in maamulka Somaliland ay sii horinayso xiisadda ceel afweyn. Korneelka ayaa sidoo kale ugu dambeyntii waxa uu taageero u muujiyay saraakiil kale oo la sheegay in ay ka gooseen ciidamada Somaliland isagoona ugu baaqay bulshada reer Somaliland in ay ka mudaharaadaan oo ay si adag uga soo horjeestaan madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi. ugu dambeyntiina Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo dhawaan lagu xiray magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya ayaa xabsiga laga sii daayay. maxkamadda magaalada Nairobi ayaa laashay dhammaan eedihii dowladda Kenya ay u soo jeedisay Dr. Bursaliid waxaana ay martay in gabi ahaanba xabsiga laga sii daayo xurriyadiisa la siiyo. maxkamadda Nairobi ayaa shaaca ka qaaday in Bursaliid uusan wax xiriir la lahayn dhammaan dambiyada ay dowladda waddankaasi Kenya ay ku tuhmayso, sidaas darteedna uu yahay qof xor ah oo bannaanka tagi kara markan wixii ka dambeeya. dowladda waddankaasi Kenya ayaa Bursaliid ku soo oogtay eedeymo la xiriira doorashooyinka Soomaaliya iyo in uu Nairobi ka sameeyay xisbi siyaasadeed iyadoo loo malaynayo in uu yahay musharax. Bursaliid ayaana arrintaas gabi ahaanba beeniyay. Dr. Bursaliid ayaa lala xiray ilaa iyo 3 qof oo kale oo lagu kala magacaabo Maxamuud Maxamed Bashiir, Cali Cabdi Maxamed iyo Xuseen Xasan Maxamuud. Dr. Bursaliid ayaa habeenkii Arbacada waxaa gurigiisa magaalada Nairobi ku yaala kala baxay ciidamada sirdoonka waddankaasi Kenya ee dharcadda loo yaqaano iyo kuwa hubeysan sida laga soo xigtay qaar ka mid ah eheladiisa. waanaga intaa saaxiibayaal warkii aad kala socoteen xanta wararka waad ku mahadsantihiin daawashadiina. mar kale ayaan idin xasuusinayaa in aad dhahdo subscribe, like aad saarto qaybta hoosena aragtidaada aad nagula wadaagto.